Soo dhawaada dhammaantiin. Waxaan xaggan maanta kaga hadli doonaa su'aalo xikmad leh oo carruurta loogu talagalay una fiican maskaxdooda in lagu kobciyo. Haddaba, waa kuwan 10 xikmadood ee ugu wanaagsan haddii aad jeclaan lahayd inaad carruurtaada maskaxdooda aad ku tijaabiso. Aynu ka bilowna ta ugu horreysa. Was gehört nur dir, aber alle anderen verwenden es mehr als du. Waa maxay waxa keliya eed adigu leedahay laakiin dadka kale ay isticmaalaan in ka badan adiga. Muuqaalka istaajiso iskuna day inaad ka jawaabto. Jawaabtu waxay noqonaysaa waa magacaaga. Waa waxa keliya taa ee dadka kale isticmaalkooda kaaga badan yihiin laakiin aad adigu iska leedahay. Aynu ka xigsiina ta labaad. Ich habe Flügel und kann fliegen, aber ich bin kein Vogel. Was bin ich? Waxaan leeyahay baalal oo waan duuli karaa, laakiin ma ihi shimbir. Waa maxay jawaabtu? Jawaabtu waxay noqonaysaa waa Flugzeug. Waa diyaaradda. Diyaaraddu shimbir ma aha, laakiin way duuli kartaa. Ta xigta. Wer hört alles, aber sagt nie etwas. Waa maxay shayga wax walba maqla laakiin aan jawaab celinin ama jawaab aan bixinin. Waa maxay jawaabtu? Jawaabtu waxay noqonaysaa waa taas oo dhegta. Dhegtu wax walba way maqashaa laakiin jawaab ma bixiso ama jawaab ma celiso. Eegna ta xigtana. Welches Tier kann fliegen? Auch wenn es kein Vogel ist. Waa maxay xayawaanka keliya duuli kara inkasta oo uusan ahayn shimbir. Jawaabtu waxay noqonaysaa waa Fledermaus. Waa fiidmeerta waxaynu u naqaano haddii aadan garanayn sawirkeedu waa ka halkaa ku yaala. Aynu eegna ta xigtana. Ich habe 4 Beine, aber ich kann nicht gehen. Was bin ich? Waxaan leeyahay 4 lugood laakiin ma socon karo. Waa maxay jawaabtu? Jawaabtu waxay noqonaysaa waa ein Tisch. Miiska. Miisku 4 lugood buu leeyahay laakiin ma socon karo. Aynu eegna ta xigta. Du siehst mich stets bei Sonnenschein. Am Mittag bin ich kurz und klein. Ich wachse bei Sonnenuntergang. Was bin ich? Waxaad igu aragtaa mar walba iftiinka qorraxda. Gelinka dambe waxaan noqdaa gaaban oo yar. Markay qorraxdu dhacdana layma arko. Waa maxay waxaasi? Jawaabtu waxay noqonaysaa waa der Schatten. Hadhka. Hadhku mar walba wuu kula socdaa. Aynu eegna ta kale. Was fehlt im Winter, tut sich aber nicht weh. Maxay tahay waxa dhaca xilliga jiilaalka laakiin aan qofna u geysanin dhaawacu. Jawaabtu waxay noqonaysaa der Schnee. Waa barafka. Barafku waxaa la arkaa xilliga jiilaalka hadduu soo da'ana cidna dhaawac uma geysto. Was kannst du brechen, selbst wenn du es nie in die Hand nimmst oder berührst? Maxay tahay shay aad jebin karto laakiin aadan gacantaada ku taaban karin. Maxay noqonaysaa talow jawaabtu? Jawaabtu waxay noqonaysaa ein Versprechen. Ballanqaadka. Ballanqaadka gacantaada kuma taaban kartid laakiin waad jebin kartaa. Ich bin etwas, das immer vorwärts geht, aber niemals zurückkommt. Was bin ich? Waxaan ahay wax socda oo aan weligiis dib u soo laabanaynin. Jawaabtu waxay noqonaysaa die Zeit. Waqtiga. Waqtigu hore unbuu u socdaa, dibna uma soo noqdo. Okay, su'aasheenna way yara adag tahay. Du bist meine Schwester, aber ich bin nicht deine Schwester. Wer bin ich? Waxaad tahay walaashay laakiin anuu ma yihi walaasha. Maxaan ahay? Tik tak. Isku day inaad ka jawaabto. Jawaabtu waxay noqonaysaa dein Bruder. Waxaan ahay walaalka. Okay, waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii. Su'aasha u dambaysa. Ich wechsle meine Farbe. Regen und Sonne schenken mir Leben. Was bin ich? Waan midabo badanahay. Roobka iyo qorraxda ayaa sabab u ah inaan noolaado. Maxaan ahay? Jawaabta waxay noqonaysaa ein Baum.
geedku wuxuu isbedbedelaa ama midabadiisa uu beddelaa waqtigiyada xilliyada marka loo eegayo. Classe, tobankeenii hal xidhaale si fiican ayaad uga soo jawaabtay. Danke, waad mahadsantihiin. Haddii aadan intani ayna kugu filnayn oo aad jeclaan lahayd kuwo kale oo fara badan, fadlan barta kommentiga noogu reeb jawaabtaada. Subscribe garee si aad ula socoto sidoo kale muuqaallo badan oo sidan oo kale ah. Nabadgelyo.